sumcadda saxafiga waa tilmaamaha sugnaanta wararkiisa kaasi waa ciwaanka maqaal aan kaga hadli doono arrimaha saxaafadda ficil kasta ee la sameeyo sabab ayaa ka dambaysa iyo hadaf laga leeyahay arinta keentay in ciwaankan aan wax ka qorana waxa ay tahay in aan salugsanahay habdhaqanka iyo warbixinada qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed saxafigu waa indhaha bulshada waa macalinka ummadda waa qofka kaliya ee isku xira dhammaan dadka meel kasta oo ay adduunka ka joogaan waxaana loo baahan yahay in uu ahaado qof ay dhisan tahay aqoontiisa diiniga ah iyo tan maadiga sumcadna ku dhaxleh dadka intiisa kale astaantiisuna ay tahay karun sheegidda waxa uu tabinayo saxafiga wanaagsan waa kan ka fogaada been abuurka musuqmaasuqa aflagaadada iyo wax walba oo saameyn ku yeelan kara sumcadiisa iyo haybadda uu ku dhaxleeyahay bulshada madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka mar uu ka hadlayay doorka saxaafadda ayaa waxa uu yiri hadii lay kala dooransiin lahaa dawlad leh saxaafad aan madax banaaneen iyo saxaafad madax banaan oo aan dawlad lahayn waxaan dooran lahaa saxaafad madax banaan waa sax in la qiimeeyo xorriyatul qowlka oo saxafigu waxa uu xaq u leeyahay xorriyad dhameystiran si uu u cabiro dareenkiisa una tabiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin mujtamaca laakiin taasi macnaheedu ma aha in uu awood u leeyahay saxafigu ku hadalka oraah walba ee uu doonayo waxaa jira xuduudo iyo xeerar adag oo aanu ka gudbi karin saxafiga waxaana ugu horeeya diinteena muqaddaska ah ee xakameysay dhammaan insaanka oo dhan saxafiguna waxa uu ka mid yahay dadka oo waxa ka xaraan ah dhammaan waxa laga xarimay ummadda inteeda kale sidoo kale waxaa jira dhaqamo iyo soo jirino u gaara shucuubta caalamka kuwaasi oo mudan in la ixtiraamo marka laga soo toogtaana waxaa jira xeerar caalami ah oo xakameeya wariyaha saxafiga wanaagsani waa kan u hoggaansama dhammaan xeerarkaasi si sumcadiisa ay u dhowrsanaato xeerka saxaafadda ururo warbaahineed oo badan ayaa waxa ay wadajir u sameeyeen xeerar iyo qodobo lama dhaafaan u ah saxaafadda oo ay ku shaqeeyaan kuna dhaganaadaan waxaana ka mid ah qalad la'aan xaqiiqo ku saleen kala soocidda xaqiiqda iyo ra'yiga in aanu sumcadil ku sameeynin qofna saxafiga dib u saxidda hadii uu qalad ka dhaco in aanu aqbalin qaadashada laaluush in aanu danihiisa shakhsiyadeed ka hormarin danta guud cadaalad in aanu warku ku raadin qaab khiyaano ay ku dheehan tahay isku dheelatir iyo dhexdhexaadnimo haddii saxafigu ilaaliyo dhammaan qodobadaasi iyo kuwa kale ee la midka ah waxa uu noqonayaa wariye naajix ah oo dadku ay rumaystaan wararkiisa waxaana uu bulshada ku dhex yeelanayaa taageerayaal fara badan oo jecel qoraaladiisa iyo akhbaaraadkiisa sugana muddooyin dhaadheer ogow saxafi qormadaada hore ee runta iyo howlkarnimada ka muuqato waxa ay ka qayb qaadanaysaa korarka taageerayaashaada oo waxaad noqonaysaa qof ay dadku xiiseeyaan qormooyinkiisa oo ay tabaan haddii ay waayaan laakiin haddii lagugu barto been iyo warar aanu aqbali karin caqliga akhristaha waxaad noqonaysaa mid ku fashilmay kasbashada bulshada oo waxaad gaaraysaa in bulshada aanay eegin qormooyinkaada xataa haddii aad wax wanaagsan soo qortid Soomaalidu waxay tiraahdaa beentaada hore runtaada dambe ayay u baastahay waa xaqiiq oo cidii mar waqti kaga lumo qormo aan u qalmin waqtiga dib ku eegimayso oo waxaad noqonaysaa qof magaciisu ku caanbaxay fashil oo horay looga tago kolkii uu soo muuqdaba haddaba sumcadda saxafigu waxa ay tilmaan u tahay sugnaanta wararkiisa oo dadku sida ay wariyaasha u kala sumcad badan yihiin ayay u kala jecel yihiin oo ay u aaminaan wararkooda taasina waa xaqiiqo jirta oo aan cidi dafiri karin sumcaddu waa mid la kasban karo ee ma aha mid loo dhasho waxaana saldhig u ah karun sheegidda dhacdooyinka iyo ka fogaanshaha wax walba oo sumcadil kugu keeni kara ugu dambeyn dhammaan waxaan xasuusinayaa saxafiyiinta Soomaaliyeed in aysan ilaawin xilli walba aakhiro oo waxaa jiri doonta maalin la xisaabin doono dhammaan wixii camal ah ee aad fashay ogowna carabku waa xubinta qaladka ugu badan ee insaanku ka yimaado waxaana saxafigu uu u yahay carabku muhiim gaar ah maadaama shaqadiisu ay astaan u tahay Cabdi Kaamil Yuusuf Maxamuud Khartoum